السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تدرير يوتيوب عاد بان idin wada salaamaya meel kasta dunida daafeeda ka joogtaanba ما شاء الله. وأنا يوم مركلة حمد naturals مركزتوا إذا لما شركة يصدلية وح عمل سمينا يوم وح مطبخ لقو سمينا يوم أما وح ما أركت ياي gaar ah oo diiradda meel kaliya uma saarna markastaba dadkayga waxaan la jeclahay inaan wixii aan isleeyahay waxaana laga faa'iidayaa ma aragtay inaan la sheer gareeyo maasha allah. marka waxyaalo badanna waxaanba kuu saamaxaynin ma aragtay inaad oo la sheer garayn lahaa lianna bulshadeena dhexdeeda wax badan baa u baahan in laga hadlo, miiskana lasoo saaro, lagana wada naqaasho. balse bulsho cuqdad badan baynu nahay oo ma aragtay haddaad maanta wax ka hadashid waxaas ama adaa lagugu shaabadaynayaa ama qofbaa ormaarigli wuxuu u qaadanayaa personally waxayna waa sida mucjisooyinka badan intaynoo ka dhacaan inaga dhexdeena Soomaali ahaan aynan ma aragtay aynan ka hadlin, buugaagna ka qorin, qisasna lahayn. لأن قصص كي وحلقة وقصة هذه ما أنت لسوقات وإنه ده رير هبل بالغو السعودي يا إله هنكينا دعف رير هبل مرك أنت زواهر دع وحال يري ما أركتي أفيف دقاشة قفنا هرتلو لما تشيدو قفنا ما أركتي أنا قلنا يسكولا ما تشيدو إذن كان إذن لما تشيدو يا حتى هذا أنا يسكولا تشيدو أنا ده إننا ما أركتي لو ذهي بيسن مايو ما أركتي وحي إن شاء الله وحيالا بدنا وانصوب بندقيا وبالشدينا كل حجرة وحوانا أكسن يوحي كريبتان وباهم با لكن وحمانا إلهي هينا كهيو يوحي دنبينو كغاي معانا يو وحو كسي يرد بحيران يهي عجل كني عجل كي أنا همين دحلاس السميي وكلسوني ذاها كلسوني دو وشي عجيبة وانا شي علاج وباهن haddii ay kaa xumaato sidii aan markii cajilka horeba ku xusay. marka intaa maxaa dheer maxaase dadka ku koos gareeya oo ku maaragtay ibaara ku wajaha inay horta kalsoonidu ka dhimaato. number 1 waxaa weeyaan dadka ku heeraaraysan ya laana horta intii qofka la daaweyn lahaa la daaweyn lahaa waxaa kasii fiican in lala hadlaba dadka oo dhibaatada ku keenaya ya. waxaa laga yaabaa qofkeena qof kastoo bini aadan oo ilaahay abuurtay wuxuu leeyahay wax la dhaho weak points iyo strong points maaragtay calaashaan wax weak ah oo wax meel ku jilicsan yahay iyo meel maaragtay ku adag yahay iyo wax xirfad ku wanaagsan yahay iyo xirfad maaragtay uu qofku ku liito. laakiin inagu qofka haddaynu aragno inuu qofkaasi maaragtay uu yahay qof maalinka meel ka jilicsan ama meel ka yare dhibaataysan waynu daba dhiganaa ama il yari ay uga banaanaato dadka diiradda la saartaa. garab istaagana ma naqaano sida wanaagsan oo la isku garab istaago ya ama sida daacadda loogaga hadlo arrimada ama sida loo naqaasho. marka waxa weeyaan qofka horta inaynu wada ogaano especially dadka daba dhigta weeyaan inaynu wada ogaano qofka bini aadamka horta adigu ha ku koos garaynin xaalad aan maaragtay daba qabasho lahayn, sida qofkii maaragtay inuu isdilo, sida qofkii inuu waasho, sida qofkii maaragtay in uu meel marxalad xun gaaro oo maaragtay caafimaad darro iyo dib iyo ilaa dil maartu naftiisa ka taqasuso ciidada billaah ilaah wax nagu keenay. laakiin way dhacdaa hadal kaliya oo aad qof ku tiri ama daba dhigasho la daba dhigtay ama family ha ahaato ama mujtamaca weyn ha ahaato, laakiin way dhacdaa. laakiin inagu ma ogin, inagu waxaynu ognahay waxaa laga yaabaa qof kaliya oo aad ku tiri maalin ama ilmo yar oo aad dhowr goor doqniyaho iskaga maaragtay dabageysay ama iskaga dabageysay waxba ma tihid, waa lagaa fiican yahay inuu naftiisa uga taqaluso. ilaah wayna ku keenin, laakiin way dhacdaa bulshadeenuna waa bulshada dadka madaxa ka toogata ayaynu u badannahay. لأنه
waxaana qaarkeen aynu aaminsannahay markaynu qofka hadalka adag iyo hadalka dhaawac ale ku leenahay in aynu hay saaki in aynu maaragtay wax tarayno oo dhanka adag iyo dhanka aan dabacsanayn iyo dhanka xumaanta leh iyo dhanka maaragtay hadalladu ay ka adag yihiin in maaragtay waxaynu isleenahay aynu qofka maaragtay uu wax u kordhinayo adkaynayo laakiin saas ma aha iyo Allah subxaanahu wa ta'ala markuu fircoon dirayay oo marka waxaan leeyahay uu dirayay nabi muuse oo uu fircoon u dirayay muxuu ku lahaa allah wuxuu leeyahay falqul hal laka ilaa an tasakka bal tartiib la hadal waa intaasuu istahira waa intaasuu wax maqlaa yaa waa intaas laakiin inagu waynu ka gadisanahay tii mujtamaca adduunka oo bini aadanka oo xataa kuwa non believerska kuwa aan diinta lahayn xataa say dadka ula dhaqmaan iyo siday diinta ula dhaqmaysay labadaba waynu ka gadisanahay labadaba waxaynu haysanaa unique way oo Soomaali ahaan oo dadku wax iskugu sheego kaasoo ah sida khaldan in wax la isugu sheego qofka sida khaldan in wax looga dhaadhacsiyo qofka sida qalbigiisa dilaysa ay hadallada nabarka ku reebaya in wax loogu sheego ya hadallada nabarka ku reebaya hadallada kalsooni darrida qofka waxa looga bilaabaya wax ma tihid waxba ma aadan ahaan jirin intaasaad saa ahayd waxaanaad samaysay qofkii waxba samaynin baxataa ya bilmatalan ilmo yar baa imtixaan buu ku soo dhacaya ya ilmo yar baa imtixaan ku soo dhacaya markaas la oranaya waligaaba saan TV bad fiirsataa saan baa tahay bilaaya wax ku siisatay maxaan wax kuugu soo gaday maxaan calalkan ugu keenay haddaaba intaa mina sheeganaysid aabbow ama hooyoy dee maxaad u dhalaysay ya maxaad u dhalaysay maad family planning aaddo iska soo xidid maho aad tiraahdo okay anigu only mid kaliyaan korinayaa kaasaana waxaan u qabanayaa 1,000 tururar kaasaana waxaan ka ilaalinayaa inuusan dhicin inuu imtixaamada heer sare wada keeno inuu 100% saaro way 6 7 8 9 10 11 12 aynu dhalanaa misna aynu gablan isugu haysanaa ya misna aynu gablan isugu haysanaa inagu intaas ilaahay inuu wada siiyay marka qofka hadalkayga dib ugu soo noqday لأنه وحي كل جلسة بد بكل جلسة مركز بدن هيسد وبدن مسكحة كأجت جيران يا وبدن عن نقاشي وبدن أي كابو حيانين تسوي بردفتي بد دي كله هيركيدا كوتشي حيسا وهيركيدا طبعا يا مركا بالقفك كلسوني وكلماتي عجلك ورد بجوا قفك كلسوني وكلماتي أنتي نداوينين إنه وأنا عن إسكاب العويو aynu iska daaweyno dadka sida aan wax loo yeelin inaynu barano ya lianna maanta markii aan anigu qofku yiraahdo ama gabadh islaamiyad ku yiraahdo aan ku digto aan uga bilaabo intay xataa isoo weydiisato advice aan iraahdo ma aragtay weligaabad waxaad ahay weligaabad jilicsanayd weligaabad saan ahaan jirtay weligaabu ninku saas kugu ahaa weligaaba ma aragtay aadan caruurtaada waxaysan wax ma aragtay nonsense ya hooyo kastoo Soomaaliya waa hard working hooyo kastoo Soomaaliya waa strong waa dadaalay waa kuwa ma aragtay caanaha banaanka la fadhiya waa kuwa milicda maantii oo dhan fadhiya waa kuwa guriga yimaadeen ninka qanciya waa kuwa 20 caruura iyo dariskii iyo maxay ahaaytooy soddogii qaraabadii oo dhan intaasay intay iyadoo milicdii maanta dhan fadhiday intay soo kacdo bay hadhowna qancinaysaa mid kasta saxankiisa cuntada ugu guraysaa mid kasta ay ka qaadaysaa istiraashadiisa iyo biyihiisana soo hordhigaysaa hooyo Soomaaliyeed waa taas ceeb male at all ya ceeb male at all wax ceebaan hayaa ma jirto ya xataa hooyada jilcsan xataa hooyada ay ka boobooday still waxaan arkaa hooyooyin wadamo qurbaa bay ku dhasheen marka way naga dabeecad duwan yihiin annaga ya hooyooyin Soomaaliyeed oo waxa laga yaabaa wadamo waxay ku dhasheen maaragtay ama America ama wadamo kale ama Europe taas marka la sheekaysato wallahi hooyada baadiyaha joogta inta ka guuxaysa ayaa ka guuxaysa hooyadaas say strong u tahay say fariid u tahay say ilmaheeda rabto inay ula dadaasho ayadoo qul huwa Allahu aqoonin ama bismillah ayay waxay ku leedahay cunugeedana waxaan rabaa inaan xaafid ka dhigo waxay leedahay one day xijaaban xiranaya one day ma aragtay Soomaaliyan tagaya one day saan samayn doona caashan guul iyo gowanimo iyo heard bay rabtaa Soomaalinimo inay gaadho ya marka laakiin ragga
taasi kuma jirto kiiskooda waa kiis kale xagga idig yaa kiiskooda waa kiis kale marka inaan inagu ilaashno weeyaan oo aan inaga waliba dumar ahaan aynan qalbiga la iska jabinin inaan qofka dhibaataysan hooyada ilmaha laga xiray baa kamid ah toban waxaa loo yeelayaa toban godoloolo hooyada ilmaha laga xiray ayadaa saa samaysay sida iyagu saa samayn kartaa iyadu miyaysan tii todobada ciyaala ayadoo af ingiriisi aqoonin ayadoo sida qabowga la iskaga dado aqoonin oo wadamada qurbaha joogta ya ayadoo ma aragtay aqoonin sida cadkeeda qaalada looga soo goosto wayna dadaalaysaa ogow ya way dadaalaysaa ninka way ka dadaal badan tahay hooyadu miyaysan ahayn tii lixda soo korisay miyaysan ahayn subax kasta winterka ku walacaysa miyaysan ahayn subax kasta 10 ciyaal iskuulka la geynaysa ya miyaysan ahayn inta walwalku u sii dheer yahay ee dhahato ilaahay iga gaalaysiin ilaahu ma aragtay tiro quraanka sida ula dadaala iyadoo aan quraan lahayn iyadoo quraan aqoonin iyadoo education lahayn iyadoo bal iska dhaafay xataa hooyooyinka Soomaalida pre school la geynin ya pre school ayagan xataa loo dhigin soo ma aha kuwa ay dadaalna miyaysan ahayn kuwa dadaalka badan bisraaxa hadii run laga hadlayo weeyaan ya marka sidee qalbigeeda loo damage gareyn karaa sidee qalbigeeda hooyada Soomaaliyeed ama ilmaha ama hadda general baan u hadlay laakiin hooyada ila gash laana hooyadu waa tiir muhiim ah markastana waa in loo dooda markastana insha Allah waan u doodi doona ya miyaynaan ahayn tiir muhiim ah oo ina ku dhex jira sidee ugu eedayn kartaa gabadh walaashaayoo ilmaheeda laga xiray sidee ugu eedayn kartaa gabadh walaashaayoo dhib ku dhacday sidee ugu eedayn kartaa gabadh walaashaayoo ilmihii meel ka dhacay aad ugu nasbayn kartaa because iyada ahayd wadada waxaan u dhiceen kala ma aynan ahayn ayadu waa tii dadaalaysay waa tii habeenkii inta yar seexanaysay waa tii guriga inta nadiifinaysay waa tii ninka qancinaysay waa tii Soomaalida qancinaysay waa tii ninka reerkooda qancinaysay waa tii reerkooda ma aragtay qancinaysay iyadoo aan shaqaynin baa laga yaabaa Soomaaliya inay dadku biisho ilaahay og yahay baa laga yaabaa xaaladda ay uga soo qaadayso biilkaas laakiin reerkooda soo wacayaan maxay leeyihiin inteer hadal oo munaasib aan ahayn bay leeyihiin oo ay ku waalan alla ilaahu maxaan arkay gabar Soomaaliya laga soo wacayo ooyeysa ilaahu maxaan arkay gabar Soomaaliya laga soo wacayo ooyeysa oo tiri walaalkay ama hooyaday baa xataa igu tiri hadaan walaalkay guriga u soo dhisin waan ku habaarayaa gurigeedana maalinkaas waxay ku leedahay ma haysto baniga cascas ee lacagta Mareykanka oo aan waxba goyn hadaa suuqa la aadid walaalay ma haysto ku leeyahay mana awoodi karo ninkiina saas ugu yiri ya markaas ay gabdhihi waxay u dhaxeeyaan 7 cadaabood ilaahay waxaan ka baryayaa inuu cadaabta aakhiro iyo su'aasha aakhiro oo kulul iyo midda godka toona uu gabdhaha Soomaalida ugu darin ya ilaahay anagana ku cibaadaysta wala raali galiya hanaga dhigo iyo intii raali galin naga midnaba waar wala zawj wala awlaad intii martay mas'uuliyadooda ka soo baxay anagana Allah naga dhigo ya marka waxaad arkaysaa inteer oo gabar oo markay arrimaheeda kula sheer galayso ama anaga qofku isaga muddo isagu noqda ama aniga iguba ku soo maraysa ya aniga iga soo wada martay ama kun gabdhood soo martay tay kule mar walaalay saasay ugu dhacday walaalay hooya uga soo wacday alxamdulillah gabdhaha waxaan leeyahay horta aniga waxba ii dheerihiin badan ma sha Allah wax badan bay dheerihiin laana aniga dadka qalbiga saftiga iska loobaanahay oo waxa laga yaabaa ilaahay ugu ma keenay amuuraha qaarkood inay ma aragtay ay marxalad kale aan gali lahaaba markay ku soo maraan marka sidee baad buntigan dib ugu noqday sidee ugu dhaliili kartaa sidee ugu dhigi kartaa sidee bay waxaan u dhaceen no adaa waalaysid sidaad u waali kartaa sidaad wixii ma aragtay ugu nasbayn kartaa sidee baad arrinkan dhacay qadarullah ma sha faal bad ku leedahay waxaad leedahay walaalay kor isu soo qaad walaalay it's not only today walaalay amuurahan waa laga gudbi doonaa walaalay awlaadda way ku kori doontaa walaalay maalin kala safgaari doontaa walaalay maalin baad shaqaysan doonaa waalidkan qancin doontaa ma aragtay ama ilmahan qancin doontaa walaalay maalin waxaad u leedahay wax wanaagsan inaad u dardaarantid laakiin xagga intaa ka laabatid inaad tiraahdo saan noqdo qofkii calaashan basically iyadoo team leeyahay team baa la waalayaa dumarkeena dhexdeena weeyaan team iyadoo leeyahay oo la isku duuban yahay ayaa la waalaya ama family ahaan ha loo waalo ama asxaabteeda xataa fareenkaagu markaad gabaray ogow markaad gabar fareen la tahay gabaray markaad gabar fareen la tahay ogow familkeeda aad ka mid tahay ya gabar markaad fareen la tahay ogow familkeeda aad ka mid tahay ya anigu dadka fareenada yar baan ahay
sometimes waan isdhaliilaayo waxaan dhahaa al haddaad fareen badan lahaan lahayd wax badan baa oo kale oo badan baad ogaan lahayd ama maaragtay hadday arrimo kaa xidhmaan kuu kala bahalgeysmi lahayd marna waxaan dhahaa alxamdulilah laakiin fareenku markasta qiimo ila leeyahay dad few yaan fareen lahay wallahi qiimayna ila leeyahay positionka familka iyagoo kale position la midabayna ii taagan yihiin ya marka ogow fareen hadduu wax kuu sheegto ogow fareen markaa tahay familka gabadhaasaad ka mid tahay waxay kaa mudan tahay talo waxay kaa mudan tahay ma aragtay inaad ka naxdid inaad haddaadan wax u qaban karin inaad la naxdid inaad maaragtay u qalbadijisid inaad soo raadi dadka sida loola taliyo haddaadan garanaynin soo raadi dadka sida loola taliyo laakiin qof adoo la talinaya weligaa ha uga bilaabin wallahi adaa ninkan isku kibriyey wallahi ninkan hadduu saas min lahaa wallahi ciyaalkan adaa saas ka dhigay wallahi maya adigu doqon baa taa lagu oranaya wallahi doqon baa taa waxa weeye waa wax aad u dhib badan meel xanuun weeye xanuun qofka meel bay ka xanuunjinaysaa doqon baa taa ormaarigle idinka ma dareemaysa laakiin qofka weligan ilmo yar ilmaha waddankan ma la sheekaysateen waxay qabaan wax un low self esteem oo laakiin markaad sii raacdaysid oo buugaag badan akhrisid oo dad badan aad maaragtay wax ka dhageysatid dadka qoraayaasha dadka maaragtay mudaaraseeya nafta iyo self esteemka waxaad ogaanaysaa kelmadaasi inay kelmad culus oo xabad in lagugu dhufto hal mar baad dhimataa ya laakiin markaad qofka wuxuusan ahayn nasbaysisaan baa tahay halkaasaad ku daciifsan tahay weliba qofka dhalinyaro markuu yahay way ka duwantay ya weligaa ha uga bilaabin qofka saan ama gabar ha ahaato xataa rag baan aragnay self esteem aawadeed la-aanteed maaragtay iyaguna ficilo xunxun u gaaraya ficilo xunxun iscadaynaya isdhibaataynaya alaashan war hebel madoobaaba lagu yiriba ya marka lifni hooyo marka asxaabay ajilku way ku dheeraaday midkaan ka samayn doonaa biidnillah isaguna musalsalkana waa inoo noqon doonaa marka waxaan idin leeyahay wixii talo iyo tusaale waan idinka fadhiyaa wixii aad igu canaanaysaan diyaar wixii aad igu sabooraysaan diyaar balse dadka qulubahooda ha la ilaaliyo weligaa qof markaad u sheegaysid wax haddaadan garanaynin sida wax loogu sheego please soo daraase please dadka diin qof la soo tasho please dadka kale oo maaragtay wax akhristay oo psychologist ah oo sida qof loo waaniyo garanaya la soo sheekaysa laakiin qofka iska soo abaarin adigoo weliba ku oranaya waa liidataa ama ilmo yar ha ahaado ama qof weyn ha ahaado ya marka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu share subscribe wixii talo iyo tusaalaha waa idinka xaggiina anigana waa dadaalka idinkana waa ducada bartaad iga dheehanaysaan xamdi naturals markastaba dhankii ay arrintu ka bahalkaysan tahay ayay wax idinka keentaa waad mahadsantihiin 100% wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu